shaqaalaha wasaaradda ilaalinta deegaanka iyo daaqa qaranka degmada Ceelafweyn oo ay weheliyaan ciidamada booliiska iyo militariga oo iskaashanaya ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku jiray howlgallo lagu ciribtirayo ama lagu mamnuucayo gubista dhirta iyo nabad guurka deegaanka ayaa waxay si wada jir ah uga fuliyeen maanta howlgalladaas deegaanada xamilka Lunda Waco Masle iyo Jadxulood oo dhamaantood ka tirsan degmada Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag waxayna gubeen 75 hogood oo ay ku kaysaneed dhuxul iyo dhir qoyan oo la garaacay sidoo kale waxay baabiyeen seerayaal si sharci darro loo ootay oo ku yaala deegaanadaas ugu dambeyntiina waxay kala dardaarmeen bulshada ku nool deegaanadaas inay ka waantoobaan gubista dhirta iyo nabad guurka haddaba waa kuwan iyagoo ka warbixinaya ulajeedka howlgalkoodan waxayna yiraahdeen howlgalka ballaaran aanu ku soo qaadnay deegaankan ololayaanu daminta waxaanu gudbinay ilaa Masle ilaa iyo xamilka oo ololayo gabigeedaba xasuuq lagu sameeyay iminka waa saacadu tahay 3 galabnimo waxaanu maraynaa inaanu gubnay 200 hogood welina aan wax laga dabaalanaya aanay jirin dadka deegaanka ku nool waxaanu digniin culus ka siinaynaa cidii aanu ku qabanno waxaanu uga digaynaa in maxkamadda la horgeyn doono in ciqaabtooda la marin doono si ay uga feejigaadaan odayada cuqaasha salaadiinta intaba waxaanu uga digaynaa inay dadkooda u siiyaan warbixin inaanu howlgalka cidii nagaga hortimaada aanaan cidna u joojinaynin amarkaanu sidanaana uu ka yahay tani waa fariin aanu u dirayno xumaan quutayaasha caadaystay inay xasuuqaan dhirtii iyo deegaankii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hawshan aanu maanta aynu qabanay sida aynu maanta aanu isu kaashanay baanu isu kaashan doonaa umana naxariisan doono kuwa caadaystay inay xasuuqaan deegaanka mar labaad waxaan uga digaynaa dadka caadaystay inay xasuuqaan dhirta inay ka tanaasulaan inay faraha kala baxaan haddii aanay faraha kala bixin oo ka tanaasulin waxa indhahoodu taaban doonaa waxay la yaabaan waxaan leenahay deegaanka waxa ilaashada dadkooda cid waliba waxaan leenahay ilaashada deegaankeeda anigu waxaan hayaa liis kasta oo tuulaa 230 tuuleed Ceelafweyn xukunto nin kasta oo dhuxulshada ama dhir dabargoy waan hayaa liiskiisa wallahi been sheegay waa hayaa xamilkana inta tirsan waan hayaa odayaasha maalgeliya baan hayaa cuqaasha solaadiinta nabadoonnada kuwa heertuulayaasha qof baan idin garanay ka jooga oo ka waantooda ballan waxa la idin ku qaaday inaan idin soo ururno idin xidhno hadii wasaaradda deegaanka hadii aanu nahay waxaanu magaranaysaa garabsanaynaa oo magaranaysaa wadanaa ciidankaas aanu wadanaa militariga iyo bilayska waqtiin maanta ciidamadii Soomaaliland inay fadhiyaan degmada Ceelafweyn oo nabadgelyo u joogaan deegaankana cidii magaranaysaa dhibaato gaarsiinaysa sida nabadgelyada wax uga qabanayaan bay iyadana wax uga qabanayaan tallaabay ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda inay dhulka dhibaatada u geysato ay indhaha ku arkeen maanta ay arkeen tallaabay ka qaadi doonaan way xanuujin doonaan ilaa madheera baa la socodsiin doonaa waa la xukumi doonaa haddaanu nahay wasaaradda deegaanka iyo ciidamada qaranka militariga iyo booliskaba waxaanu howlgal ugu soo baxnay goobtan oo ah Dacara Moos in leeg 50 kiiloomitir oo isku wareega baanu ku gubnay dhuxul aad iyo aad u badan Axmed Mursal Askar TV ga caalamiga Universal Ceelafweyn